dir ahna duqa magaalada ku-xigeenkiisa agaasimayaasha guud gudoomiyaasha degmooyinka bahda waxbarashada bulshada rayidka bahda saxaafadda dhammaan kasoo qaybgalayaasha farxad iyo reynreyn bay noo tahay ina goobjoog nagala noqotaan ku dhawaaqista ama shaacinta natiijada imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad 2022 waxaan rabnaa inaan idin wadaagno oo aan presentation aan ka sameyno imtixaanaadkii iyo heerarkii soo mareen iyo productionka ama natiijadii ka soo baxday marka hore 11 qodob ayuu presentation ka kooban yahay waxaan ka hadli doonaa marka hore warbixin guud inaan ka bixino imtixaanaadkii tusaha shaxda darajaynta natiijada guud ee ardayda natiijada gabdhaha iyo wiilasha natiijada heerka gudbista isbarbardhigga heerka ka qaybgalka imtixaanka isbarbardhigga heerka gudubka 2022 sidoo kale waxaan ka hadli doonaa 10 kaalin ee ugu sareysa natiijada imtixaanka fasalka 8aad 10 kaalin ee ugu sareysa ama ugu hooseysa dugsiyada 10 dugsiyo ugu sareysana waa soo bandhigaynaa 10 dugsiyo ugu hooseysana waa soo bandhigaynaa degmooyinka natiijada ugu wanaagsan iyo kuwa ugu hooseeya iskuuladaas degmooyinka ay ku yaalaana waan soo bandhigaynaa kala sareynta maadooyinka subject performance-gana ayadana waan soo bandhigaynaa horaan usii gelaynaa agaasinka waxbarashada wuxuu ku guuleystay qaadista imtixaan lagu kalsoon yahay lehna halbeegyada looga baahan yahay imtixaan qaran ama imtixaan shaadi ah imtixaanka waxaa la qaaday 13 bishii May ilaa 16 June aan dhahe oo sanadkan dib u dhac ugu dhacay doorashooyinkii iyo dib noo rida bisha May aan qaadi jirnay imtixaanaadka iyadoo ay qaadistiisa ka qayb galeen in ka badan 3,000 oo howlwadeen oo kala duwan 71 xarumood ayuuna ka dhacay oo gobolka Banaadir ku yaala sidaanay u kala qoran yihiin sixidda iyo diiwaangelinta ardada kormeerka xarumaha dejinta iyo dheelitirka imtixaanka daabacayaasha kaaliyaasha ilaaliyaasha nadaafadda ciidanka amniga daabulayaasha imtixaanka saxayaasha wadar waa 3,191 howlwadeen ayaa ka qayb qaadatay imtixaankan sanadkan waxaan isticmaalnay wax la yiraahdo grading system oo sanadii hore waxaa la isticmaali jiray dhibca loo soo deji jiray ardayga laakiin sanadkan way ka duwan tahay waxaan isticmaalnay darajayn wax la yiraahdo ama grading system oo ardaygu meeshii laga dhihi jiray wuxuu keenay 80 90 100 50 wuu dhaca la dhihi jiray hadda waxaan isticmaalaynaa A ama A minus B B plus B minus gradingkaasaa loo qorayaa ardada waa nidaam cusub oo waxaan ku yiraahdaa caalamka dhan laga isticmaalo anaga marka taa waa ka guurnay oo waxaan qaadanay grading systemkaas iyadaana u fiican ardada meeshii ay ku qornaa jirtay 50 ama 35 oo keenay D ama E u qoran marka tana ceeb qarinta ardada liidatana u fiican system ahaana standard caalami ah marka tana qaadanay translation-keedana waa sidaas u qoran tahay website-ka la soo dhigi doonaa oo laga daawan doonaa insha Allah tacaala natiijada guud ee ardada haddaan soo qaadano 26,860 arday ayaa imtixaanka u fadhiisatay tiradaas 24,443 way gudbeen 2,417 way hareen boqolii markaan u fiirinanayna 91% ardadu way baastay 9% way dhacday 9% way dhacday okay haddaanu kala saarno marka gabdho iyo wiilal gabdhaha waa 10,760 wiilashuna waa 13,683 waa ardada gudubtay ardada gudubtay 40% ama 40% waa gabdho
boqolkiiba 51 waa wiilal. ardada hartay 981 waa gabdho, 1436 waa wiilal, boqolkiiba 4 gabdhahay ka dhacday, boqolkiiba 5 wiilash. wadartoodana waa halkaa ku qoran. natiijada heerka gudbista grade A ardada ku jirto waa 4 boqolkiiba. grade B ardada ku jirtana waa 25 boqolkiiba. grade C 37 boqolkiiba. caloosha ugu weyn oo sida ah ee u badan yahay ardadu 25 boqolkiiba waa D. E waa 9 oo inta hartay ah. isbarbardhigga markaan fiirino 2021 iyo 2022 ardada imtixaanka gashay 2021 waxay ahayd 25882 arday. sanadkan waxaa gashay 26860 arday. sanadkii hore waxaa ka maqnaa imtixaanka oo ardadii loo qorsheeyay ka mid ahaa 802 arday. sanadkan maqnaashuhu hoos oo u dhacay waxaa maqnaad 463, waa kala bar haddii la fiiriyo. ardada kororka ardada waa boqolkiiba 4 iyo hoos u dhacna waa boqolkiiba 42. wadarta guud labay noqonaysaa. celcelis marka la kala jarana boqolkiiba 1 ayaa soo kororta ardada ka qaybgalka marka la yiraahdo. heerka gudbista sanadkii hore wuxuu ahaa boqolkiiba 93 ayaa baastay. sanadkana waxaa baastay boqolkiiba 91. meesha isbedelku ka yimid aan rabo waxaan inaan bidhaamiyo. isbedelkaasi wuxuu ka yimid dabcan ardadu way ka badantay. baaskuna wuu ka badanaa, haritaankuna wuu badanaa. 2 imtixaanka sanadii hore waxaan ku qaadi jirnay hal imtixaan la keeni jiro goobageli ah. sanadkan waxaan keenay 2 qaybood oo subjective iyo objective loo yaqaano ama maqaal iyo mawduuci oo ah imtixaankii oo dhammaystiran, meelaha bannaan buuxi, goobageli, ka jawaab, curis intaba. taasaa marka waxay keentay isbedelka. meesha waxaa ku qoran 10 arday ee kaalinta soo gashay ugu sareysa. waa saxaafadeedka lagu akhrin doonaa, waan ka gudbayaa tan. 10 kaalin ugu sareyso ama ugu hooseysa dugsiyada ugu sareeya waa 10 dugsi. iyadana waa saxaafadeedka lagu akhrin doonaa insha Allah tacaala. 10 ugu hooseysa waa dugsiyada 10 ah oo aad u liita. ay hob sanadkan in iskuuladan ay xirmaan noqonaysaa, waana sii shaqay kareynin. waan sii soconaynaa degmooyinka dugsiyada ugu sarreeya ku yaalaan 5 degmo iyo 5 degmo ugu hooseysa. 5 degmo ugu sarreysa waa degmada Hiilwaa. sanadka dhawaana sidaas ay ahayd umalayna. Dharkeynley, Warta Nabadda, Hodan, Kaxda 5 degmo ayaa ugu sarreysa. 5 degmo ugu hooseysa waa Shangaani, Boondheere, Xamrooyne, Shibis iyo Waaberi. 5 degmo waa tahay. subject performance-ga markaan fiirino raal noqda maadooyinka siday ugu kala fiican yihiin ardada. sanadka dhawaa waa ku halkaa ku qoran. waxaa ugu hooseeya Carabi, Soomaali, cilmi bulsho, Ingiriis, saynis, tarbiya, xisaab, technology. dabcan sanadkii hore technology ma jirin. sanadkan ayaa la soo kordhiyey oo imtixaanka lagu soo daray. 8 maado ayaa imtixaanka lagu galay. waa isbedelka oo imtixaanku ka koobnay ka mid tahay. sanadkan waa sidaan meesha idinkaga muuqata oo si uu ka fiican yihiin. guud ahaan 3 maado oo Carabiga, tarbiyada iyo Ingiriiska ay ardada ku liitaan. maadooyinka kalena way ku fiican yihiin oo maadooyinkaasina waxay ku baxaan af Soomaaliga.
saddexda maadana waxay ku baxaan af Ingiriis iyo Carabi. horumarada la sameeyay imtixaanka laga sameeyay sanadkan markaan soo bandhigno dejinta imtixaanka marka loo barbardhigo 2021 2022 imtixaan dejinta ka qaybgalayaasha imtixaanka dejiyay way ka badnaayeen marka loo fiiriyo sanadka hore. maado kasta waxaa dejisa 2 macallin, dheelitirkana waxaa sameeyay maadadii 1 macallin. halka imtixaankii 2021ka la ballaariyay laguna soo kordhiyay su'aalo toos ah iyo curis, taasi oo sababtay hoos u dhaca ka muuqda isu dhiganka maadooyinka qaar. yani isbedelka lagu sameeyay imtixaanka ayaa sabab u ahaa ardayda qaarkood inay sanadka hore ay ka hooseeyaan. waxaa looga shaqeeyay in la tayeeyo su'aalaha imtixaanka iyadoo la isticmaalayo hanaanka Bloom taxonomy oo ah hanaan lagu qiimeeyo imtixaanaadka. waxaa la sameeyay tababaro dheeri ah oo la siiyay saxayaasha imtixaanka. sanadihii hore imtixaan saxayaashu toos ay u geli jireen sixidda. sanadkan waxaa loo sameeyay imtixaan deemish ah oo ay ku tababarteen oo ay saxeen. markii ay isla heleen oo isku wada waafaqeen su'aalaha saxda ee jawaabaha ayaa kadib waxaa la bilaabay imtixaankii saxda ahaa markii hore deemish ay ku tababarteen. sanadkan waxaan ka qayb gelinay bulshada rayidka iyo bahda waxbarashada. boroseeska imtixaanku uu maraya bilow ilaa dhammaad qayb ay ka ahayeen wayna la socdeen. taas waxaan ku dhisaynay kalsoonida bulshada imtixaanka inay ku qabaan. waxaan soo kordhinay hanaanka tusaha darajaynta dhibcaha grading system oo haddaan ka hadlaynay. intaasay ku egtahay. aada u mahadsantihiin.